haatanna magaalada Kismaayo ururka al-shabaab ayaa la sheegay in magaalada Kismaayo iyo agaarkeeda ka ogolaadeen cunista hilibka waraabaha. idaacadda Voice of America ayaa la xiriirtay dad ku sugan magaalada oo xaqiijiyay in toddobaadyadii la soo dhaafay hilibka waraabaha laga karinayay maqaayadaha magaaladaasi. mid ka mid ah culimada ugu waaweyn Soomaaliduna waxa uu idaacadda u sheegay inaysan xaraam ahayn hilibka waraabaha. Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintan noo diyaarisay. Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo kamida culimada ugu caansan Soomaaliya waxa uu sheegay in cunista hilibka dhurwaaga uu yahay mid banaan sharciyan ayna ku soo arooreen xadiis banaynaya. waraabaha dhurwaaga kulasiga loo yaqaano xadiis baa ku soo arooray hilibkiisa iyo cunidiisa. xadiiska Jaabir uu warinayo nabiga ka warinay sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay Jaabir baa la weydiiyay waraabuhu ma wuxuu ka mid yahay ugaadha keedu banaan yahay. kadibna Jaabir wuxuu ku jawaabay ninkii su'aasha weydiinayay wuxuu ku yiri ma rasuulka yiri sidaas. Jaabir wuxuu yiri rasuulka sidaas yiri inuu ugaadh yahay macnaha hilibkiisu inuu banaan yahay la cuni karo. xadiiskaas waa xadiis saxiix oo Ahmed iyo soo saaray afarta ahlu sunanka waxaana saxiixinaya Bukhari iyo culimo fara badan. xadiiskaas markaa asal u ah hilibka waraabaha inuu banaan yahay oo la cuni karo waxaana sidaa qaba culimada kamid ah Imam Shafi'i iyo Ahmed ibn Hanbal ayaa qaba. bal Imam Shafi'i wuxuu ku leeyahay kitaabkiisa umka kama zuulin buu leeyahay dadku inay cuni jireen oo kala gadan jireen sida marwada dhexdooda suuq ku yaalay baa lagu kala iibsan jiray buuri. cid diidi jirtayna ma jirto waxaa yeelay waxyaalaha carabta ay jeceshahay way ammaanta ayuu ka mid yahay. falkan dad badani waxay u arkaan inuu yahay mid ugub ku ah dhaqanka Soomaalida maadaama la og yahay waraabuhu inuu cuno dadka iyo dunyada ay dhaqdaan. mar kale ayaan su'aalay Sheekh Maxamed Cabdi Umal waxay u ekaanayso in waqtigan la banaysto hilibka dhurwaaga. kutubteeni fiqiga ugubkuma aha oo culimadu dawladda si jireen minhaajka iyo shuruuxdiisa iyo kutubta ka hoosaysiya war ku yaala masaladu way ku taalaa. iliyahu culimada tafsiirka si kale u dhigi jirto dhihi jirtay waa waraabo aan kan dhulkeena jooga ahayn oo saan ku sheegay carabta laga helayo midna casoon xoolaha cuni bay ku sheegi jireen waa tafsiirka culimadeenu. laakiin kutubtu fiqiga waa ku qoray masaladu wax diidayana ma jiro. Imam Shafi'ina waa qabasaan ku sheegay kutubtii fiqiga Shafi'iyadana waa ku taala. mujtamaceenuna waxayna u cuni jirin culimada tafsiirka siisay aan ku sheegay oon ila saxsanayn. midda kale wadankii hadda baahi baa ka jirta dadka muxuu ahaayay marar fara badan waxay gaarayaan xilligii baktiga u banaana waraabo oo xadiis ku soo arooray oo culimada qaar kamidana qabaan cunitaankiisa hadda inuu la yaabaaba khaldanba. warka murtidiisa iyo gulaanadku waxa weeye waraabaha hilibkiisa la cuni karaa. aad baad mahadsantahay. maxay kula tahay Cabdullaahi cunista hilibka iyo Ismaaciil soo sheegay hadda ka hor ma maqashay meel Soomaaliya kamid ah hilibka laga cunay? waa maalintii ugu horeysay aan warkan maqlo. waa gartay anu waxaan maqli jiray maxaan ku yiraahdaa dabcan diintana qaarkood dadka diinta aad u yaqaan way sheegeen in xayawaanka ilkaha korale aan la cuni karin hadda waa la banay laakiin hadda culimada waad maqlaysaa aad iyo